naagtas inta la shaqeynaya badii musqushi ku quweysanaya oo xaajada loo galay deeba kaan buu xiran tahay meeqa maana tiri karo marka adiga hadda waa isqaybtay kalimadda soo maada assalaamu calaykum galab wanaagsan door wanaagsan fiid wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isoo naqa dambe xiisa leh waa anigu walaalkiin maxbuus dalka toos nagala socota waa channelkeena maxbuus official haddaan ugu cusubta oo ay tahay markuu wareysan soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa subscribe noo saartay video like saar wixii fikradaada commenting noo reeb asxaabta runta ka mid tahay la sii joogo like ta dhac isaga sii aad u mahadsantiin kuna soo dhawaada channelkeena iga xisoo ku dhahay hadda damiir leedahay haye adi ani handado ee dhahdo arintaas beenay hadda kaali weysid live hadda telefoonka ka galeena live ka soo active fidisa loo baahan yahay live kaasna kama beenay kartid ee dhahdeen meel aadi kartidna malahan ana waxa ku dhahay marka maya inta ma joogay walaashiya iyo walwaleeso walaashiya joogta ku dhahay hal mid ismay mar kale taa ku imaanaya ku dhahay ma fahanteen haye markale arinta ka hadleena hadan teema ahayo maadaama meel dheer ka imaade waa baxaya ku dhahay habreed habeenkaas giftaanka iyo giftada iiraal garas intaas muhiim ah ku dhahay way marka in sidaas dhaafsanay in aniga ay hub iso qaataan waxa samee ku dhanada samee weysid waxa kaaga ku dhanada kaadli weysid anaga warkeena ma diidi kartid daar cali soo aniga waa isayna adiga waxyaabo saamile kaadleysay Roberto hadii yani arintan beenay wasaaru aan waxa ku sharaftaad ina meesha ku weesid daara cali soona aniga ku tusinayo ina yani wax walba ma xaq ku dhacana ana sameeynayo adiga wixii daldalay suurta wax qof bili aadan maskaxiisa gali karo ama qaadan karo ma hanabti ma fahanteen way ina hadda ay dhahday xataa ilaahay hadda been ka sheega asaga la ku dhahay ma dhashay ma dhiigta la iga dhiga ku dhahay mustaqbalkayga dambe hadda hooyo ilaahay iga dhiga hooyo noqdo mustaqbal badacday inaa sameysto ilaahay waxa ku farxay oolaad ilaahay ima siyaada been ka sheegay isaga lacabada ma fahanteen waxa dhacday in niman askara ku xireyso askaraasaan ku yeelayso niman oo booliisa arintaas soo faragashta booliiskaasaytay ana ila saxirnaya way soo wacayaan booliiskaas hadee gacanta kugu dhigaan waa gacan gashay waliga ildam ma lagu saarayo inta sira ka xawaadaysa adiga camal ma fahanteen ani marka muhiim waxa ii ahayd meesha nafteeda inaan horta ka soo badbaadsado ka soo baxo hadda videogada xataa waa daari kartaa oo waa dhegeysan kartaa mar dhees xataa game dheelena hadana way boodaysaa hadana live ka caaw soo wada galeena waa tii dhahday hadda oo videoga fiirisiin xataa marka video kor wiilasha fiirinaya oo wax intaan ma fahanteen way marka ati dadkii uma in sagali aniga wax ii qarib qani ee tahay waxa u geesta jirin oo aan u gafin oo waligay alay hal eray oo khaldan oo xanaaq ama xurgufa isaga la dhaxmarin abtimaan dortor igama soo marteen ma fahant ya way qadka ma ay xun ما قد كان محمد مركز عليه حد ما يقف فيديو عمل كايسة فيديو ما يقف كايسة في قياس والله مقلع فيديو ياش ما يعد ما يقف فيديو شكل كايسة إنا لله وإنا إليه راجعون عرتي ناكس أنت ليش قينا يا بدي مسخوشي أكو خويسنا أو حاجة لو قلها دي كان بوحرنتاي ما يقم ما تركرو مركز عليه حد واس قيمتي كلمة سو ما عاد waxa uu sheegaya abayaalo ka taxadir naagta hadii xitaa eedan niigeyso oo shaqo ay wadaagaysiin ka taxadira waxa sameynaysiin naagtaasna iska ilaaliya yaa dhowta godkaan hadii ugu dhacay iyo niidu ku ridin damiir ma lahan hadda marka adiga meel safe ma joogtaa hadda meel safe ma joogtaa Nairobi ma ka baxday hadda ani tracking waxa saligu sameynaya Nairobi waa kasi baxaya in dabagal iyo waxa sadaliyo hayo ani in li jir dilo in dhibaato li gaarsiyo la rabo waxay dhan ana had waa la isoo sheegay inaan isku badnaado hadda aniga ina meesha ka sii tago waa shacabku dhan ma ku kacay hadda adigu waa sax meel safe tag laakiin shacabku dhan ma ku kacay hadda dadkii dhan ma ku kacay banaan baxaya ka socdo Muqdisho Nairobi banaan baxa ka socdo gabdhii Soomaaliya dhan kacay looga lagu sameystay dadku adigu garab joogan
cid wax kaa qaadaysana inay jirto ma aaminsan ma fahamti laakiin saasay tahay dadaal naagtan naag dhib badan weeye mataqaanaa dadki way dhibtay gabdhaha soomaalida way dhibtay ma fahamtay marka dadkuna maanta waxaa la yidhi meel kasta ha laga ribood gareeyo gabdhaha soomaalida waa kaceen sloogana sameeyey ma fahamtay marka anfac waa ku salaamaa baa ha waa kaa qaaday socdi baayo anfac abaayo horta shalay ani dhibaatada markay igu dhaceyso waa ka hadla wax aqriye alla aamusame aheen saasee taa waa ila socotaa u maleynaa dadkii daawadayaasha ka ahaayaa kamid aheed ani been ma kuu sheegaayo maalinta agteeda kasoo muuqatay wallaahi inaana been sheegeen oo bilaahi wadnaha ay xanuuna sababta ee waxaa ogaa wixii dhici doono waa naxay gabadhaan abgaal waayo markii la dhaa maxay ka doontay dad badan ay soo waceen oo ii digeen waata diinta islaamka ka baxaa ma fahantay laakiin ana xadhe dad dees qabsadeen ee dad isdagaaleen aan maxaa ii 15 dhaay caadi waaye ani si wanaagsan ay walaaloosa gabdhaan maadaama caawinaad ee balaadarnimo u baahan tahay oo wanaag ma taqaano oo sharaf ma taqaano oo walaal ma taqaano aniga gurigeed inta iigu wacda filina duubeena la dhaay guriga la igu xirtay ani ayada iyo ninkeeda iyo walaalkeed iyo 3 nin oo kaleeta iyo 3 naagood ayagoo oo 5 nin guri ku jiraan labada naagoodna guri ku jiraan fadhigeeda ani la igu xirtay fadhiga hadda uu yaalo waa fadhiga kale xataa maahan guriga la igu xirtay wax ka soo wareegtaa iskala bishii 6aad waay 2024 bishii 6aad ee markii lagu xiranay ani guriga oo video waa laga duubaa lidhahay marka tii ani igu dhacday kuugu dhacday walaashay macaan ilaah kuu boogday shalana waa u jeeda mar ani lii ka soo dhiganay huba lii ka soo dhiganay ku dheh markii lagu dhahay waxa soo dhan waa ogaa ana lii ugu dan lahaa ana lii socday haba ani video qof arkay anina raalki ahaynin aanan ku qanacsaneen aba ani ay kugu mudigineen aniga naftii wacsanay ani waxaa dhahay leefka marka gurigeena taga walaashay iyo walwalayso leefka markaas kula soo galaa way soo wacay telefoonka ma ka qaban ani ma fahanti maadaama leefka la soo gali waayay meesha ay ka qaraartay eeda ma fahanti midada labaad waa dareemay anina gacan korka baqaysan ay jawaab ahayd mid marka leefkeeda ka degtay 30 daqiiqo gudihiisa hadda ku soo laabo waxba dhacay jawaab sii raacisay hadda soo laabanay laakiin waa ku sugtay hadda soo laabanay laakiin waa ku sugtay okay marka hore inaan u tagtaa qalad aheyd laakiin ilaaha shalana ka badbaadiyay shala xataa mishin weyna ka badbaaday abti liibana alxamdulillah aniga sameeyada oo soo sameeyay waxa dubdada waa soo duubay liibana waa ninka tabgaala ah in adeerka artabgaalka wuxuu dhahay liibana adeerka in artabgaala wixii kugu dhacay xumaa in adeer anaa ku gursanayo anaa ku soo wadayo ingiriiska 2 bilaa ku keena waxa balan ku qaadaa ina hadda qolka sagal markaa soo qabsatid oo sagal soo qabsatid in 1 milyan koonis lagu dhufto waxa dhaab assalaamu calaykum waxa dhahay ani horta hore ani waditaankani waxaan ka loo sidii lacagtana ka loo sidii ani miimi maana dhaab ma fahanti miim waxa ii hada an xaqiiqinaylo waan ku ogaaday nin daawud ina tahay aniga artabgalnimo ayuu soo gambanin sacaadi oo waaxida oo walaalnimo ugu hadalay ani ma fahanti markaas waxa dhahay adiga mustaqbal martid miya ina marwo noqoto ina guur waxa sameystid miya oo dhahay ana waxa ku dhahay guurkan iyo waxa galos ani maalinta calafkeyga u yimaado inna iga hor istaagi kartaa dhahay arintaanitine fara iskala baxa ku dhahay sagal oo sheegay salaxa ku dhahay inay real gris meesha umaad ninkeennit muxuu yaa dhahan dadaad uu yahandada maya tasul maalik kartid maya markii hal si degan u lahaashud way yani way canaanatay like ama gana gabdhaha la dhashteen xataa guriga way joogeen gabdhaha la dhashteen guriga way joogeen ma fahanteen aniga marka meesha aan kasoo tagay bloga iska saaray qolka iyadoo waxaan inay ugu tilmaamaysa arkay maanta xala u dambeysay jawaabaa siiyo wixii hartaa kaasho wixii hartaa sameyso meel bloga ka saaray nolosheeda ii nabadgeliso waxa u joogan horta waa gabdho ma fahanta waxa la dhashteena gabdho waa garabkeeda taagan ma fahanta haddii ugu digto iyo haddii dafirto ilaahay ka jaaisay ilaahayna waxa ugu barya bilbarkeesana ugu jiraaye si degdeg inuu ilaahay eedo
halkaana kama cafin doonin maalinta qiyaam iilkaanii wada fadhiyaa inta been iga sheegtay intaa waxaanan tilmaamtay inta qolanteyda soo fartiicaysay inta sharafteeda u gaftay inta dadnimadeeda u gaftay inta hooyadeeda u gaftay weligay i alahay idimin cafi dooni lacag doonna miihi fiis doon miihi sharafteeda saas kuma weynin aniga still ayan naag adag ah okay waa run xanuun waa dareemayaa qalbiga way ololaya ma fahanteen aad ugu damage gareeyay oo muddo dhibaato kugu soo bilaabatay xilli hore maskaxiin lagu dhibaatay marka lagu fiiriyo sheekadaada waa adig dhan waa kala macnaha waa isku dhex yaacsanta qof isku dhex yaacsanata maxaa la dhahaa afka ingiriisiga waxbaa maskaxiin kugu dhacay ma fahamta weli waxay qarinaysaa dhegayso qolka aad tegayso iyo meelaha aad qabsanayso iyo warka badan inaad iska dhaafto kiiskaaga xooga gacanta loogu hayaa aniga waxaan qabaa in wixii sharci ah sharci u marno hawsha ama naagta ha ahaato ama Roberta Calasow ha ahaado in arrintu sharciga ku socotaa sharciga lagu wado adina iska dhaafto inta xana qatan badi qolka aad qabsanayso iyo dadka aad la tirsanayso waxba ha sameyn waxaas wax lagu noqdo wax lagu noqdaa kiiska ina ka daba tagno ila soo afjaro ma taqaana oo kiiska aan soo afjarno wi marka hawshan meel fiican bay ku socotaa gabdhaha Soomaaliyeed waa ka cidali dibad daahiro farba ii baxay haye diigaanka waxaa la yiri waa ninkii munaamihiin keenaysa dhehaysa fiidiyooga waa kana xale dhibkiisa gaar mujedi حل جبت درسين موجودة اوكي diigaanka waa ninkii munaamihiin soo qarxinaysa dhehaysa fiidiyooga wiilka reexan waa asaga يا مجدين مجدين لقطة يا كدري يا إلى أنت حتى إلى أنت صدق ايغا إلى حتى أنت سخفنا مشايين ما نكهلين إن حتى جردل وحل إيجستي still gabadha asmaha lin amaana iska keesaysa lugteeda waa kaas korkeyga meel qaar oo waxa jira aan dadka tusi karin ma rabi naagtas amaana iska keesayso xalay waxa igu sameey kartaa way igu sameysay anfac waxa qasna waa qurunsada mujeedin korkeyga anfac وريو قبل الامتحان ادوا اسكا يستبع انا لله وانا راجعون